بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan ka bilaabayaa casharkii labaad waxaan ku baran doonaa qaabkii dadka ama qofka shirkad iska leh lacagtiisa oo u gashan lahaa QuickBooks-ka isagoo adeegsanaya siyaabo fara badan. QuickBooks-aan soo kicinayaa halkan hoos u yeela mar hore waa diyaarsaday. marka waxaan bilaabaynaa maadaama hadda shirkadii aan soo abuurnay oo markaysaa ay hadda ay wax walba noo dhan yihiin. marka qofkii shirkadda aasaasay ama dadkii shirkadda aasaasay tusaale ahaan waxaan kasoo qaadi doonaa 3 ruux ayaa wax isku darsadeen. marka qaabkii loo buuxin lahaa hadda fiirsanaysa insha Allah. waxaan tagaynaa company, waxaa kasii tagaysaa make general journal entries. okay, kan iska xir. halkan markay warqadan ama shaashadan ay ku soo baxdo waxaad halkaad ku qoraysaa lacagta yani meesha la dhigi doono oo kale ama nooca ay tahay. marka tusaale ahaan waxaan ku qoraynaa cash on hand, yani lacagta oo gacanta lagu hayo waaye. marka cash on hand wuxuu ku leeyahay maxay tahay. marka korkan qaybtan oo kore fiir akhri account not found, yani account-kan hadda adi abuurhaaso ama abuurayso yani lama heli karo, yani QuickBooks ma aqoonsano. marka si uu u aqoonsado adiga ayaa rabaa inaad buuxiso. marka cash on hand is not in the account list, yani account-nada oo cash book oo soo diyaariyay oo list ugu jiro account-ka kama mid ah. marka maxaan sameynaynaa set up aan dhahnaa. marka anaga hadda abuureyno. okay, shaashadan waxaa marka add new account cusub ku daro marka oo QuickBooks yani maqashii ama ogolaansii. marka account-kan waxaa waaye haddii uu mar uu cash u yahay lacag oo arabno inaan dhigno wuxuu noqonayaa bank. si fiican ila soco. halkan bank markaan ku qoray halkan hoos wuxuu ku leeyahay create one for each cash account such as petty cash, checking, savings, money market. afartama marka yani haddii account abuurayso account-ka nooc u yahay nooc oo deyn oo miya mise nooc oo markaasa amaah miya mise nooc account waxaa waaye oo lacag la dhigayo meel. marka hadda account-kan waxaan sameynaynaa oo lacag aan dhigayno meeshaan QuickBooks-ka sifo oo waxyaabo fara badan oo nooga caawiyo oo haddii lacag la bixinayo haddii oo diin aan soo deensano wax dhan account-kan wuu saameyn doonaa. marka shirkadda dhan waxay ku yani ay ku howlgelayso ay ku shaqeynayso waa lacagtan waaye. marka okay aan dhahaa ama continue. okay, halkan wuxuu ku leeyahay waxyaabo fara badan kale ku dadar ku leeyahay haddii rabto account type. marka bank aan u sii deynaynaa wax kale ma rabno kan le u deynaynaa. account name-ka magaca halkan waan ka bedeli karnaa. waxaan dhihi karnaa tusaale ahaan lacag cadaan, lacagta sanduuqa oo kale af Soomaaliya hadda aan qoro sanduuqa, lacagta sanduuqa yani lacagta sanduuqa ama lacagta shirkadda. okay, lacagta sanduuqa iska leedahay. ama hadda waxaan dhihi karnaa lacagta lagu furay shirkadda lacagta lagu furay shirkadda ayaan dhihi karnaa. halkan faahfaahin aan ku qori karnaa haddaan rabno. halkan bank account number aan ku qori karnaa, routine number aan ku qori karnaa. waxyaaba fara badan marka ha kusii daalin oo ku weerari doonta. marka save and close yani save garay oona xir. marka account-ka waa soo xiray. marka maxaa loo baahan account-ka meeqa marka
accountka marka accountka lacagta la dhigay meeqa marka accountka lacagta la dhigay waxaa waaye tusaale ahaan waxaa waaye tusaale ahaan konton kun waaye okay lacagta hadda aan dhignay konton kun waaye marka kontonkaas kun yaa iska leh marka kontonkaas yaa iska leh kontonkaas kun yaa iska leh tusaale ahaan waxaa iska leh mid la yiraahdo cali oo kale cali doodaya oo kale doodaya waa mid dood badan cali doodaya iska leh marka tab aan taabanaa oo keyboardka ama keyboardka oo computerka marka hadar meelaha banaanka iska dhufan karaa anigoo saan u qoray cali doodaya ee meelaha iska dhufan karaa muuska okay tan dhaho ودي مرك حلي على الدودة ما قانون ليها وكانوا يقومون جراسين يعني على الدودة ما كسهي حتى لنا برو على الدودة يعني محية مرك إلى العجة عمل اللي جاي العكتاس وحا يسكال عندونه شخصيات مرك شخص كم إذا عمرش مش قرني على الدودة مرك دول عادت ليه المحيط هاي وهنتيلة دوي هنا إكوتي الله مرك إكوتي هذا مقشو وأنا هنتيلة واي كنتينو ده على الدولة يا هذا مقع مش بدل كرنا مقع كلام بدل كرنا بيس يحا فافين كلام بدل كرنا هل كان مسوي كله description بدل كرنا لكن save and close كده يعني اسكحر ونسوي كده اوكي على الدولة يا مركا ماشي أنا في رسول كنت نكون أسك إنه ليه هي ماشي كقرن لكن مرة منو إنه أسك له العقد أن ويشوف وحارمنا إن نقيب كسينو أما قيب والهذا يعني العقد صراحة نشوف ليه هي صلت نكون ayuu على الدودة شركة كودر سيدو كله مركز أساس تاعي على الدودة سيدو كمركز مركز لا تنكوني أسئلة مركز تاب تاو هذا نكو عيدي تابك هو صدق لا تنكون مكاس مركز لا تنكون سكون هذا وحاسكلها دونا جوار اللي سهروا كله يعني دو مركز تا شركة دو يقول كلام سهروا عيل أو كله سهروا عيل أوكي مركا سهروا عيل لا تنكاف اسكله مركا طبعا طبعا هدي كلامنا ميلان اسكار فنيا كاوسركا وحكوليه سهروا عيل ما قاني مركا هاد بران لينا هاي برو صفه دو دنبا oo noo weydiin marka kale sahro ciil hada ku qorno isla markii waxa la rabaa in akooki bookska oo tuso oo ruuxan sahro ciil akoonkan ama akooki bookska ku dhex jiro waxa waay hantiila waay inuu noo sheegnaa marka equity waay hantiila waay sahro ciil okay leh hadana iska xir save and close sahro ciil marka 20 kun aan siinana maya saddex ruux ka dhigana dadka oo shirkadda iska furtay marka waxaan dhahnaa sahro ciil waxaan siinanaa 10 kun oo kale meeshaan ku dhufo marka waxa soo hartay marka 10 kun soo hartay marka daaw fiirsato halkan 40 kun way lacagta oo hadda aan qiibiyo 40 kun lacagta oo aan bangiga dhigana ama account-ka bangiga aan dhigana waa 50 kun markaan uu leeyahay bangiga dhigay ma aha bangiga caadiga ma aha laakiin QuickBooks-ka ayaa wuxuu u tixgelinayaa lacagta adiga aad safgareynayso meel dhigayso as a bank ahaan marka kontankan markaas waxa uu qalqaybiyay intaas ruux ayaa iska leh marka 10 kun soo hartay marka 40 kun waxa ka harsan 50 kun waa 10 kun marka 10 kun iska leh marka waxa iska leh naciimo oo kale naciimo kale naciimo xilada ma garanay leeyahay نعيم مقرنا ولا مركا عبرنا إيكوت واي أوكي أنا سيفن كلوس تون كون مركا خلا ودبيسو تون كون مركا أوكي هذا مركا اسكا واسكو هل والعقدة تطلق عن بين جدي العقدة كله واسكو هل مركا إن شاء الله تعالى ساس أيا وسيف قرنا ساعة مانتوت سيف أن كلوس مركا أدارة كويك أو إن يعني أدوغتو si oo markaysa aad ku fahmi lahayd lacagahan si kala bixin report aad tagaysaa waa sii soconaysaa hoos aadaysaa balance sheet standard waa ku dhufanaysaa kadib markaa ku dhufato aan weynaysiisto waa ka lacagii
meeshaan wuxuu ku dhahay assets current asset checking and saving lacagta lagu furay shirkadda waa 50,000 marka checking savings waa 50,000 kale total current assets waxa waaye 50,000 waaye liabilities and equity na waxa waaye 50,000 waaye marka waxyaabo fara badan oo assetska iyo liability iyo equity waxaan dhan insha Allah casharka kale aan ka dhigi doonaa oo gooni ah marka saan hadda u tahay u qaado equity-ga waxaan ani waa hantiile oo account cusub equity laayo ma aha yani wuxuu ka dhigan yahay account-nada hadda awarnay cali naciimo sahro intaas waaye marka cali dooda wuxuu leeyahay 30,000 naciimo waxay leedahay 10,000 leedahay sahro waxay leedahay 10,000 leedahay marka 50,000 ay isku ekaanay marka saas insha Allah taala ay noo ahaanaysa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your next lesson.